ninkan waa fanaan raabar ah oo caan ah oo Maraykan ah. Islaamka ayuuna ku qancay kadib markuu masjidka galay oo arrimo la yaab leh ku arkay. Maalin asagoo maandooriye soo cabay oo stuudiyihiisa ku sugan oo hees cusub duubaya ayuu walaalkiis ka yar u soo galay. hadal ayaa dhex maray kadibna waa uu la murmay, waa uu qabtay, madaxa ayuu ka garaacay ilaa uu cunugii miyir daboolmay. qof muslim ah ayaa soo wacay, halow imow masjidka. koox hubaysan ayuu soo watay kadibna masjidka ayay soo galeen. halkaas ayayna ka dhacday arrinta mucjisada. haddii aad muslim tahay ha hilmaamin muuqaalkan inaad like saarto siina share garayso si uu gaaro dadka muslimiinta ay ugu waana qaataan. page-keena follow dheh Mudaac Bayl oo lagu neenaaso Napoleon. wuxuu ku dhashay sanadii 1977 dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka New Jersey. wuxuuna ka dhashay qoys masiixiyiin ah oo islaamka ku qanceen. isagoo 3 sano kaliya jira ayay maafiya guriga ugu soo galeen. hooyadiis iyo aabihiisna waa ay dileen. markiis kadib xadaanadiisa waxaa la wareegeen awowihiis iyo ayeeyadiis oo ahaayeen masiixiyiin diintooda ku adag. awowihiis isagoo yar ayuu kaniisada u wadi jiray, waxa uuna bari jiray diinta masiixa iyo sida loogu tukado masiixiga. arrintan ma aysan saamayn maxaa yeelay hooyadiis iyo aabihiis mar walba waxay ku dhihi jireen muslim ayaa tahay, qoys muslim ah ayaan nahay, allaha samada iskale ayaan caabudnaa, allahaas kaliya ayaana loo tukadaa. waxa uuna dhihi jiray markuu soo koray, anigu diimo oo dhan ma rabo, alle kaliya ayaan aaminsanahay. laakiin bay'ada uu ku dhex noolaa dhammaantood waxay ahaayeen masiixiyiin. khamriga waa la cabayaa, maandooriyaha nooc kasta waa la isticmaalayaa, walaalihiisa saaxiibadiisa hub ayay iska wataan. laakiin waxa uu aad u jeclaa heesaha raabka ah. mar walba erayo raab ah ayuu waraaqaha ku qori jiray, kadibna waa uu ku luuqay jiray, ayaguna waa ay ku dhiirigeli jireen arrintan. mar walba telefishinka waxa uu ka daawo jiray raabarada caanka ah. wuxuu isku dayi jiray sidai u nool yihiin oo kale inuu u noolaado, dharkoodoo kale inuu xirto, haweenka, baabuurta, qasriyaalka. waxa uu ku taami jiray inuu sidoodoo kale noqdo. markii uu soo koray wuxuu bilaabay inuu xirfad ka dhigto raab, wuxuuna aad ugu dayi jiray raabar caan ahaa oo lagu magacaabi jiray Tupac Shakur. wuxuu aad ugu dadaali jiray inuu raabarkan la kulmo. calaa kulli xaal ugu dambayn waa ay kulmeen, way wada shaqeeyeen in muddo ah, saaxiibo isku dhow ayayna ahaayeen. maalinkii 13 Sebteembar sanadii 1996 ayay koox maafiya ah dileen raabarkii caanka ahaa ee Tupac Shakur. xilligaas wixii ka dambeeyey saaxiibkiis garabkiisa ayuu ka baxay, fankiina keligiis ayuu ku noqday. lacag aad u fara badan ayuuna ka sameeyey raabka, isagoo ka mid noqday milyaneerada dunida. wuxuuna helay wax walba oo uu ku riyoo jiray: dahab, baabuur, guryo malaayiin dollar, diyaarado qaas ah. maalin maalmaha ka mid ayuu sarqaamay, maandooriye nooc walba ah ayuu cabay. istuudiyihiisa ayuu ku sugnaa, markaasna waxa uu rabay inuu duubo hees cusub. walaalkiis ka yar ayaa u soo galay, su'aalo ayuu weydiiyey, kadibna waa uu la dooday. waa uu sakhraansanaa, cunuga hadalkiisa waa u dulqaadan waayey, waa uu qabtay, waa uu garaacay ilaa uu miyir daboolmay. cunugiina isbitaalka ayaa loola cararay. waxaa istuudiyaha la joogay markaas nin muslim ah oo lagu magacaabo Makau Kamil. markii uu soo miyirsaday ayuu u yimid, waxa uu ku yidhi, Mudaac, aniga muslim ayaan ahay ee adiga muslim miya? waxa uu yidhi, hooyaday iyo aabbahay ayaa aniga muslim ahaa ee aniga muslim ma ihi. waxa uuna ku yidhi, ma ogtahay walaalkaa inaad garaacday ilaa uu dhintay? markii uu hadalkaas maqlayna aad ayuu u ooyey. Makau oo ahaa nin muslim ah ayaa yidhi, nakeen hal maalin masjidka ila soo joog. aad ayuu u fakaray maxaa yeelay muslimiinta fakar xun ayuu ka haystay. sababta hooyadiis iyo aabihiis loo dilayna inay muslimnimo tahay ayuu ogaa. koox asxaabtiisa oo 20 gaaraya oo hubaysan ayuu soo kaxaystay masjidka ayuuna soo aaday. markuu masjidka soo galay wuxuu arkay dad jinsiyado kala duwan ah oo si degan oo nabadgelyo ah masjidka ugu wada cibaadaysanaya. wuxuu arkay dad Amerikaan ah oo cadcadaan ah, dad Carab ah, kuwa Bakistaan ah, kuwa Eeshiyaan ah. wuxuuna aad ula fajacay dadka intaasoo nooc ah oo hal masjid ku wada jira. wuxuu arki jiray markuu kaniisadaha aado, kaniisad madowga Amerikaanka ah, kaniisad cadaanka Amerikaanka ah, kaniisad gaar ah oo Kooriyaanka ay leeyihiin. qolo kasta diinteedu gooni ayay u ahayd. waa kana markuu islaamay kadib isagoo ka hadlaya ee ila dhageyso.